waxay dhabtu tahay waxaa la dheriga maxaa karka ka keenay kulaylka dherigu inuu karo oo uumi bixiyo karkaa keenaya kulaylkaa keenaya maanta xaaladda aan ku jiro shaki kama jiro waa marxalad madow ood moodo inay Soomaaliya xaaladda ku socoto ilaa deganaanshaha siyaasadda Soomaaliya waxaa beys u ahayd 4 sano isbedel inuu dhaco nin kastoo 4 sano marayeen soo damac ku jiro uu tagay sida uu madaxweyne Shariif ka hadlayay ma ayna dhacaynin oo mayna suurtagal ahayn madaxweyne kasta oo doorasho galay aad wuxuu u jeclaa in barnaamijka doorashadu uu ku soo noqdo oo campaignkiisa uu galo sidan uu yeelay laakiin maxay ahayd qadartuna way taalay wuxuu isku dayay si hufnaana inuu calafkiisa ama ku qaado ama ku waayo su'aalo waxaa idinku filan markaan doorashooyinkiisa loo soo maray ka hadlay waxaa shirar joogta ah la lahaa tii ugu dambeysay 2016 iyadoo 2012kii doorashadu ay ku fududeyd in oday dhaqan uu wax soo xulayay 2016kii iyadoo cusbeyd oo doorashada dadban la aaday aqal sare la dhisay kala sameeyay haddana waxay ahayd maalin walba in la isu yimaado shir la galo khalad yar oo soo baxay ama wax yar oo la isku qabtay baa waqti lagu bixinay maanta waxaan taaganahay inaan la shirin inaan cid isweydiinin yaa talada waddanka lu kula yaa wax laga weydiinaya kullu hada meel baa lagu tuuray haddii ay in anfacayso lahaansho iyo dictatorshipnimo iyo anaa maamulayo anaa sidan odhanayda Soomaaliya dagaalska ay ka muna dhaca waxa caqabad iyo marxaladan iyo dhibaatada la gaarsiiyey waa waxa na soo maray hadda waxa loo yaalan waxay tahay qaylada naga keenay waddankan wada ogol iyo talo la wada tashado iyo wax la isku ogyahay meel lagu gaari karo anaa wax samaysanayana nina meel kuma gaarin Soomaaliya inay isu timaado oo miiska wada fadhiisato oo wixii danteeda ay ka tashataan asala inaan wax dumino iyo inaan wax gaar ah dhisno iyo inaan wax la cararo midna uma aanan sameeyno waxaan u sameeynay in la isu yimaado la wada tashado gacmaha la isqabsado wixii lagu dhaqmi jiray lagu dhaqmo waddanku uu sidaa ku badbaado taas ay muhiimadaan u sameeyay dareenada qaar hadday jirto qolo gooni cidda wax shidanaysa waa kuwa hadda dikaale guddi farsamo caawa 12 habeeniya intaan magaalada Muqdisho joogo ma joogtaa ma timid nimanka mas'uuliyadda hadda sheeganaya guddiyaha shiraya xataa su'aal isma weydiin inaan joogiyo inaan anaa isu joogo anaa isu waxaa laga hadlay waxa la wasiiraha loo yeelo shirha galay waxay is weydiiyeen waa nasiib daro aan ka wada fakaro waddankaani waxa la yiri qofku waxa uu ku bukoodo laguma daweeyo qof hadduu aan dhanan ku bukoodo soo saca anaha soo saca wax walba hadii uu laga yaabo inuu dawo u noqoto dadkaan qorqabasho dawo uma aha waxa dawo u wada tashi is ogol waa isarfariisi xal la gaaro wixii dan Soomaaliyeed loo arka loo sameeyo waxaan rabaa beesha caalamkana inaan u gudbiyo oo aan u sheego waddankani xaalad waddan dhisid buu ku jiraa iyo bilow dowladnimo ma joogo anaa sidan odhan karaya waa inay laga fakaro oo cidda Soomaali caawinaysa ay ka fakarto Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay waa kugu san iyo dadkoo la isku wada anaa idhi Soomaaliya inayna ka talinayn iyaguna ay noqoto qaybta ay kala yihiin inay ka qaataan isu keenista dadkaas iyo tala wadaagooda iyo waxay leeyihiin haddaan iyaga iska badaynana innaga Soomaalida aan ka fakaro ka ciidanka inta Shariifku yiri waa madaxweyne Shariif baa ku filan inuu garto ciidankani shalay wixii lagu aasaasay iyo maanta wuxuu ku taagan yahay berri wuxuu ku sii jiri doonaa ka shaqaalaha iyo ka qof waliba saas macnihiisu noqonaya waxay la tahay waddankan aan u soo wada jeesano sidaan maanta ku jiraay baraarug bay inoo tahay wake up call haddaan maanta ka jawaabo inuu garan weyno meeshaan u soconana berri waxba kama qaban karayo caanadaa todobada waa la qabtaa inta naga maqanna waan ugu yeedhaynaa waan isu imanaynaa Soomaali waxay raalli ku tahay oo kugu san ay isugu dhiibto dhaqankeedu sidoo ahaa oo sidii hadda muddadii la soo dhaafay la isugu dhiibayay yaa rabnaa hawshan inay ku dhamaato aad baad u mahadsantihiin magacayga waa Saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Örebro ee Sweden
Transfer Galaxy waxay iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.